Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono dagaalka ka holcaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dagaalkaasi oo u dhaxeeya dowladda Puntland iyo agaasimihii xilka qaadista lagu sameeyay PSF Maxamuud Cismaan Diyaano. wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Galan ayaa shalay sheegay in xukuumadda Puntland ay ku dhawaaqday xabad joojin degdeg ah ha yeeshee xabad joojintaasi ayaa dhaqan gelin xalay isaqdii dhexe abaaro 5tii habeenimo ayaana dagaal halkaasi uu ka qarxay. dagaalka ayaana waxa uu soo gaaray ilaa iyo subaxnimadii saakay abaaro halkii saac. dagaalkaasina waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dadka ayaa halkaasi ka barakacay. sidoo kale qoraal ayaa ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee dowlad goboleedka Puntland. dhinaca kale PSF qoraal ayaa ka soo baxay. qoraaladaasina labada dhinac eedeyn culus ayay isugu jeedinayeen. Farole madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland waxa uu isimada Puntland ku eedeeyay in ay dagaalka iyaga hurinayaan. haddaba falaqeyn ayaa daawadayaal ku sameyn doona waxaana isla eegi doonaa xaalka guud ee Boosaaso sida uu yahay iyo warkan ka soo baxay Farole waxa uu ka dhigan yahay. ha yeeshee inta aanan warbixinteena guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambalaalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga waxa ay inoogu reebi karaysaa aragtidaada saliimka markaana warbixinteena ayaan guda geli doonaa. Farole ayaa shaaciyay cidda sii horinaysa dagaalka ka holcaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamuud Farole ayaa si adag uga hadlay xiisada dagaal ee ka taagan magaalada Boosaaso taasi oo u dhaxaysa ciidamada PSF iyo kuwa Puntland. Cabdiraxmaan Farole ayaa sheegay in isimada dhaqanka Puntland ee ku sugan Boosaaso ay qayb ka yihiin colaadda Boosaaso isla markaasna ay sii horinayaan kadib qoraalkii ka soo saareen dagaalka. isimada qoraalka soo saaray iyaga wax sii fogeeyay ma aysan qaadan doorkii ay lahaayeen. waxaad moodaa in ay isku markaasi qasan yihiin doorka ay leeyihiin isimada iyo doorka dowladda ayuu yiri Cabdiraxmaan Farole. sidoo kale waxa uu ku dhaliilay qaabka ay isimada u wajaheen xiisada dagaal ee ka dhaxluulsan saraakiisha ciidamada PSF iyo maamulka Puntland oo uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Maxamed Saciidani. Farole ayaa si adag uga soo horjeestay in isimada ay door ku yeeshaan arrimaha siyaasadda iyo maamulka maadaama uu ku dooday in doorkooda uu yahay kaliya in ay sulux wax ku xaliyaan. isimada dhaqanka Puntland ee ku sugan Boosaaso ayaa bayaan ay ka soo saareen xiisada dagaal ee ka taagan magaaladaasi ku baaqeen in xabadda la joojiyo si shuruud la'aan ah isla markaasina loo turo shacabka. inkasta oo Farole si cad u sheegin waxa ay xiisada dagaal ku horiyeen isimada haddana waxa uu si weyn u dhaliilay qaabka ay ku wajaheen xiisadaasi oo ayadu ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyay agaasimihii hay'adda PSF. hadalkan ayaa imaanaya xilli ay baaq nabadeed soo jeediyeen siyaasiyiin uu qayb ka yahay Farole iyo siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda Puntland sida Cabdiweli Gaas iyo Cumar Cabdirashiid oo shalay kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. sidoo kale waxaa si wada jir ah ay u sheegeen in ay sharci tahay waregtadii uu madaxweyne Deni xilka uga qaaday agaasimaha PSF maadaama uu xilka yahay meerto sunaha maamulkana ku dhisan yahay. madaxweyne Deni iyo maamulkiisa ayaa waxay u soo jeediyeen in xal ka gidisan xabadda uu ku raadiyo dhaqan gelinta waregtadiisa isla markaasina hab nabadeed loo wajahayo sidii loo dhameyn lahaa xiisada dagaal ee ka taagan Boosaaso. baaqyadan ayaa ku soo aadaya iyada oo wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Galan uu ku dhawaaqay xabad joojin degdeg ah oo ka dhaqan galaysa magaalada Boosaaso si loo joojiyo dagaalka ka socda gudaha magaaladaasi. wasiirka amniga ayaa xusay in Puntland ay haatan diyaar u tahay in ay wada hadal la gasho PSF si deganaan loogu dhameeyo xiisada haatan taagan. hase yeeshee waxaa saakay dhawaaqa hubka culus markaasi laga maqlayay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
dhanka kalena daawadayaal haddaan eegno isla wararka ku gadaaman Boosaaso ayaanu ku guda jirnaaye aagagii lagu dagaalamay ee Boosaaso ayaa qaarkood la furay wararkii ugu dambeeyay wararka aan ka helayno magaalada Boosaaso oo maalmihii u dambeeyay ay ka taagneed xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada PSF iyo kuwa maamulka Puntland ayaa sheegaya in la furay qaar kamid ah aagagii lagu dagaalamay ciidamadii isku horfadhiyay magaalada Boosaaso ayaa la kala qaaday waxaana la furay qaar kamid ah aagagii maalmihii u dambeeyay lagu dagaalamayay ayadoo meelaha qaar ee magaalada uu dib u furmay isku socodkii dadweynaha qaarkood ayaa la arkayay ayaga oo tagaya xarunta PSF iyo goobihii lagu dagaalamayay oo isku socodkooda dib loo furay waxayna u muuqataa in ay dib markaasi ka dhaqan gashay xabad joojintii shalay lagu baaqay wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada labada dhinac ee ku dagaalsan Boosaaso uu mid walba dhankiisa uu baaritaan ku sameynayo gaadiidka dadweynaha kadib markii ay dib u fureen isku socodka qayb kamid ah magaalada talaabadan ayaa imaanaysa xilli ay bulshada reer Boosaaso waagu ugu baryay sawaxanka rasaas dhacaysa iyo hubka culus kadib markii xalay saqdii dhexe uu bilowday dagaal aad u culus oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo kuwa PSF ee daacadda u ah General Maxamuud Cusmaan Diyaano dagaalkaasi ayaa wuxuu iskiis ah markaasi u istaagay 7 subaxnimo ee saakay xaaladda ayaa ilaa iyo hadda degan labada dhinac ee isku haya gudaha magaalada Boosaaso oo dhowr jeer eedeemo isku jeediyay ayaa hadda u muuqda in ay markaasi si isku mid ah u qaateen baaqi xabad joojinta kadib maalmo dagaal xoogan oo khasaaro badan geystay oo ku dhexmaray magaaladaasi shalay ayay ahayd markii wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan uu ku baaqay in xabadda la joojiyo waxaana jiray isimo iyo waxgarad kale oo dhaxda u xirtay in ay joojiyaan dagaal dambe oo ka dhaca magaalada waxaana mar kale Puntland sheegtay in ay wada hadallada nabaddu sii socdaan guud ahaan daawadayaal waa inaga inta warbixintii gaarka ahayd ee aan ku eegaynay xaaladda Boosaaso sida uu yahay iyo qoraalo isdaba joog ah oo ka soo kala baxay labada dhinac ee halkaasi isku haya PSF iyo xukuumadda Deni waxaa sidoo kale warbixintan ku eegaynay daawadayaal qoraal ka soo baxay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Farole haddii aad warbixintan daawatay oo aad la socotay muuqaalkan laagi noo saar subscribe noo saar channelka fura gambalaalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan aalaaba soo gelino waa ku mahadsantahay daawashadaada iyo la jaanqaadkaada qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada inoogu reeb tan iyo warbixin midan lamida inta dib isugu kulmi doonana sida iyo amaano Allah